war ileen Soomaaliya social media waa la isaga daba yimid yaa ilaahay amarkiis qisada gabadhan magaca ay u bixisay ayaan war horta idinkaga sidaa farxiyo janno maanta social media Soomaalida saas wada gurayso mid walbo la isku dirdiraya aniga kowga hore qof saaxiiba ayaa luuq igu soo diray markaan fiiriyo runaanta waa la qiirooday xaqiiqda markaan ilaahay ka cabsado aad aan ula qiirooday laakiin 10 su'aal oo kala duwan aan maskaxdeyda kusoo dhacday sidee lacag ilmahaaga aad uga qadisay oo naftooda aad uga goysay aad nin uga aamintay kow su'aasha ugu horeyso isweydii way ahayd tan labaad oo aan maxay ahayd aan igu soo dhacday waxay ahayd xaqi ilmahaaga aad ka goysay ayaa kaa soo baxay waxay tiri maqaayad xataa weligay ilmahayga kama geyn taas idin waa maxay ahayd waxaan dhahay xaqi ilmahaaga kaa soo baxay tan saddexaad ay tahay oo ay leedahay gurigiinan ninkii war ileen Soomaaliya social media waa la isaga daba yimid yaa ilaahay amarkiis qisada gabadhan magaca ay u bixisay ayaan war horta idinkaga sidaa farxiyo janno maanta social media Soomaalida saas wada gurayso mid walbo la isku dirdiraya aniga kowga hore qof saaxiiba ayaa luuq igu soo diray markaan fiiriyo runaanta waa la qiirooday xaqiiqda markaan ilaahay ka cabsado aad aan ula qiirooday laakiin 10 su'aal oo kala duwan aan maskaxdeyda kusoo dhacday sidee lacag ilmahaaga aad uga qadisay oo naftooda aad uga goysay aad nin uga aamintay kow su'aasha ugu horeyso isweydii way ahayd tan labaad oo aan maxay ahayd aan igu soo dhacday waxay ahayd xaqi ilmahaaga aad ka goysay ayaa kaa soo baxay waxay tiri maqaayad xataa weligay ilmahayga kama geyn taas idin waa maxay ahayd waxaan dhahay xaqi ilmahaaga kaa soo baxay tan saddexaad ay tahay oo ay leedahay gurigiinan ninkii ilaahay amarkiisa marka waxa wax dhaca waaye wax jiro oo adduunka ka dhaca waaye meelo badan ay ka dhacaan Soomaali fara badan ay ku dhacaan dumar fara badan ay ku dhacaan wixii aruurinayeen kistay aruurinayeen markay is dhahaan markaan wadankii wax guri yar halayda kugu soo sameeyay aad ku laabatiin aad ku noolaatiin mustaqbalka waa dhacdaa way dhacdaa waa la arkaa wax oo maxay ahayd oo qarsoon oo hadda laga doodayo ma ahan laakiin su'aasha isweydiinta waxay tahay dooda baroorta oohinta rafaadka silaca maanta social media Soomaalida hadda qisada gabadhan hadda farxiyo janno ay la soo shir tagtay wax xaqiiqo ah oo iyada ku dhacay miyaa mise ma ahan su'aasha isweydiinta la taas waa horta ilaahay wix dambigeena ha cafiyo laakiin sheekada farxiyo janno gubataa horta gabadha farxiyo janno lama dhaho waxa ay ku soo gashaa ciwaankeeda ee daxaawo waa gabar dhalinyaro ah 20 sano la iqabay oo intaasoo ilmaan dhalay oo ninkii 30 sano 20 marka sheekada sideedaba waaba sheeko cajiib oo qariib ebo dadkii dhanaa maxay ahayd durbaano garaacday waxaan arkayay beejish fara badan oo TikTok laga samaystay oo xuquuq loogu raadinayo la dhahayay gabadhii baa dhacan tahay ninkii baa dhacay adduunkii boo saano yeelay hantidii oo ka qaatay 20 sano waxay aruurinaysay Soomaalidii maxaa la dhahaa dumarkii waa la dhacay naanaaga la xagiina aruursada wixiina dhexdiina xirta wixiina meel dhigta nin ha aaminina oo horta waxaasoo dhan waa iska talo waxaaga meel dhigo adaa iskale aamin ama ha aaminin is up to you aday ku qusaysaa ama ninkaaga aamin oo waxaaga ku aamin oo gacanta ka saar ama ha aaminin oo maxay ahayd waxaaga faraq intaa ku ridatid dhexda ku xiratid yaa meel dhigo oo adiga waxa adiga ku gaara ha ahaada ama dhaqaalaysa ama ha dhaqaalaysanin laakiin mid ayaaba jirtaba sheekooyinka qisooyinka noocaana ma dhacaan masma dhacaano haddii su'aasha taas ay tahay qisooyinka noocaana way dhacaan dad badan ay ku dhaceen oo Yurubta ku nool oo Ameerika ku nool marka sheekada sideedaba waaba sheeko cajiib oo qariib ebo dadkii dhanaa maxay ahayd durbaano garaacday waxaan arkayay beejish fara badan oo TikTok laga samaystay oo xuquuq loogu raadinayo la dhahayay gabadhii baa dhacan tahay ninkii baa dhacay adduunkii boo saano yeelay hantidii oo ka qaatay 20 sano waxay aruurinaysay Soomaalidii maxaa la dhahaa dumarkii waa la dhacay naanaaga la xagiina aruursada wixiina dhexdiina xirta wixiina meel dhigta nin ha aaminina oo horta waxaasoo dhan waa iska talo waxaaga meel dhigo adaa iskale aamin ama ha aaminin is up to you aday ku qusaysaa ama ninkaaga aamin oo waxaaga ku aamin oo gacanta ka saar ama ha aaminin oo maxay ahayd waxaaga faraq intaa ku ridatid dhexda ku xiratid yaa meel dhigo oo adiga waxa adiga ku gaara ha ahaada ama dhaqaalaysa ama ha dhaqaalaysanin laakiin mid ayaaba jirtaba sheekooyinka qisooyinka noocaana ma dhacaan masma dhacaano haddii su'aasha taas ay tahay qisooyinka noocaana way dhacaan dad badan ay ku dhaceen oo Yurubta ku nool oo Ameerika ku nool
marka markay tiri gurigii 300 oo kun oo 20 sano aan aruurinayay naag baa ku raaxaysanayso naaguu la degay waxaa isweydiiyey guriga haddii guriga la gaday soo guriga iida kuma qorno haddaan iida lagu qorin xataa oo reerka dhan ku qoran yahay xaqa guriga iida soo wax kuma sheegan karto maxay intay u cararto u tegi weysay dagaal u gali weysay dhihi weysay gurigan lacagtiisa anaa iska laha anaa aruursaday hala waxyaabo badanaa isweydiiyey laakiin ilaahay amarkiis anigoo weli la qiiraysan haddana wixii su-aalihii qaba waxaan sii galay inaan sii raadiyo naagtan qofka ay tahay ilaan show gabadha waaba gabar yaroo alla social media soomaalida wax walba horta waxaa la yidhi nin caloosha gacanta ku sida haddaa aragtid oo ooynayo oo dhiig da-ayo macnaha hafal celin ciyoobo waxaa laga yaabaa mayd inuu kasoo tallaabsado kasoo tego marka sheekada noocaasa ayaa social media ka socoto hase yeeshee maxay ahayd si kastaba isku soo aniga kuma dheeraanayo waxaan rabaa inaan dhaho bal ilaahay wixii dembi ha naga cafi wixii maanta nin la caayay wixii nin maanta hilfaha loo qaaday wixii la yiri balaayo nin yaa la aaminin fii sabiilillah waxba kama jiraan gabadha waa gabar waxeeda iska samaysato wax iska jilaysa gabar la guursaday ma ahan gabar la guursadaa ma aqaan iyo laakiin waa gabar dhalinyaro ee gabar 20 sano la qabay ma aha waa gabar social media intaas sano ku jirtay videoyo samayso videoyo ayu nooca iyadoo duq iska dhigayso iyadoo riwaayad jilayso iyadoo caadigeeda wejigeedana ay soo gelin doonaa iyadoo iska baashaalayso gabar yaro iska dhex yaro oo aan ka muuqanin gabar 20 sano la qabay ilmo dhalaysa inay tahay I don't think hadeer laga yaabo inay ilmo haysataa ama laba haysataa ama ma guursan laga yaabay laakiin waa video cajiiba waa video oo dumar badan ku kiciye qarasta ku kiciye ma fahamtay laakiin qisooyinka noocaana shaki la'aan way dhacaan boqolaalaha maqlaysaa maalin walbo gabdho maxay ahayd laakiin dumar oo ka digtoona marka ilaahay amarkiis videogan waa u qarxay waxaa maqli jiray been oo maxay ahayd been fakatay ruway ka xoog badan tahay videoga ama qaab jaliin gabadha ha u ahaato oo riwaayad ha ka ahaato oo qisooyin yaryar oo sheekooyin adiga ay matalaysa ha ka ahaato ama ha ka ahaato views badan ku helo dad badan ha ku soo raacaano sida dad badan oo hadda social media soomaalida ku jiraan waxyaabo badan ay sameeyaan wax baranki ay dhahayaan waxaan baranki gelin wax baranki galay nin qori qaatay oo familkiisa la dhex galay wax adiga adduun oo dhan la isku qaribay waxaasoo dhan waa iska views iyo sida loo helo iyo si dad kugu soo xirmaan kulley aa loo sameeya marka waxaan u sheegayaa waxaan ka baqayaa beentaan darteed gabar dhaaxa oo barooranayso oo dhibaato rasmi ah iyada ku dhacday intay social media la soo shirtay tagto inta la dhaho naga daaya waa tii camal ahe wallahi taasaan ka baqayaa sababtoo ah markii ugu horeyso oo gabadhan eedaxaawo ciwaanka ee iskale ani magaceeda runta ma aqaan balse eedaxaawo kusoo gashaa videoyo oo iska fani ahay samaysaa videoyo oo dhiirigelin ay samaysaa videoyo oo kala duwan ay samaysaa videoyadeeda ayuu noocay leeyihiin balse qisada xaawo janno iyo farxiye janno la dhacay ninkeeda 300 oo kun 20 sano ay aruurinaysay gubataa waxba kama jiraan waa qiso adiga laga yaabay in qof iyadoo la sheekaystay arrimo noocaas intuu uga sheekeeyey ee qisada iyada matasho way dhici kartaa laakiin qisada iyada ma ku dhacday maya iyada kuma dhicin waxba kama jiraan laakiin dad badan ay qaadsiisay ma fahamtay dad badan aa si degdeg ku qaadatay waxaa laga yaabaa gabadha inay wacyigelin ka tahay ay baraarujin dumarka ka tahay inaysan waxooda rag ku aaminin ay ka tahay waxaa laga yaabaa in baashaal ay ka tahay riwaayad ay jilaysa sida videoyo badan oo wax jilaysa ugu jiraan marka qisada gabadhan daxaawo horta gabar dhalinyaro waaye gabadha videogan samaysay gabar dhalinyaro waaye wejiga qaabkay u samayso waa iska filter waa iska maxaa la dhahaa laakiin sheekada siday ugu hirgashay oo cajiib kale waxay tahay soomaalida horta way jecel yihiin oo macnaha way degdega inay uga falceliyaan waxyaabaha tiiraanyada leh sheekooyinka dhacdada qof la qiyaamay qof naag maxay ahayd lagu jasaaray waa laysaga nugul yahay horaa durbaanka loo garaacdaa bababababa iyadoon hubsiino la jirin xergaha la gooyaa adduunka dhanaa la isku kiciyaa waatan hadda social media ka taaga tiktok balgal maanta meel walba gurbaankaasaa ka yaraya qol walbo sawirkeedaa saaran oo la leeyahay waa maxay ahayd waana la qiyaamay oo dumaroo isku filnaado dumaroo isku tashto dumaroo fadhiga ka kaco adiga wixii islaamo u doodayo dhan iyo wixii maxaa la dhahaa hebel victim ahaayoo dhan victimnimadii gabadhaas ee sheegatay ee dhinacooda ka raaceen laakiinse qisada
marka ilmaha xaqoodan ayaa laga cunin waxoodan ayaa laga hor istaagin sheekadii maxaa la dhahaa farxiyo janno meeshaasaan kusoo xiray macasalaamo gabadha waxaa la yidhahdaa sidaa idin sheegay eedaxaawe kusoo gashaa eedaxaawe waxaan leeyahay mar kaleeto daabcan camal samaynaysid daqiiqad gudahooda usoo jawaab soomaalida soo sheeg waxaan barankii ahaayeen dheh waayo dumar badan aa dhiikar ku kicisay dembiga allah wixii dembiga allah cafiyey intaasaa kusoo koobaya subscribe sii dhaha muuqaalka sii faafiya intaa mid kale barnaamijka lamida ku kulmaynan waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum gabdhaha ayagana waxaan leeyahay dabka dhiga hana laysku kalsoonaado waxaaga keydsa muxumo qof aamin ama haamin is up to you laakiin ilmahaaga xaqooda qofna ha siinin waa iga tala marka gabdho badan oo dhibaato noocaasa hore ula soo diristay oo maxay ahayd 20 sano 30 sano waxay aruurinayeen isdhahayeen baag kula laabo maxay ahayd meesha aad ka imaado gurigaagii guriga lagaaga gado adduun ku noolaada odaygii la tegay wixii naag kale ku guursay maxaa la dhahaa adduun waxaas way dhacaan wax hore u jira waayo wax hadda cusub ma ahan keliya waxyaabaad oo adiga waxyaabaha zaa'idkan uga xanaaq waxay tahay tiri ilmahayga maqaayad kama geeninay tiri nolol fiican ugama noolaanin baawur qarxaan ku noolahay aan watay intaasoo sannadood wixii aan keedsadoo dhan asigaan faraqa geliya walaalayaalo ilmihiina wixiina siiya wixii ilmaha ku qaaday dadis waxay tiri boyfriend yaa ku dhalay waa waxyaabaha xaaraanta oo aan fiicnayn in ilmahaaga aabbahoodoo taagan aad tiraahdid ilmahan meher kuma dhalanin guur kuma dhalanin waa maxay ahayd waxyaabaha problemka ugu badan oo dhibaatooyinka ugu badan oo soomaalida haystaan yurub oo dhan ka jiraan america ma aqaano laakiin yurub oo dhan